ugu dambeyn Kenya waxaa si rasmi ah u yeelatay madaxweyne kaas oo hogaamin doona 5 sano ee soo socota. Doorashadii ka dhacday dalka Kenya 9 bishii la soo dhaafay ayaa waxaa hareeyay buuq tiro badan, taasi oo qasabtay in maxkamad la isla aado. Maalmo ay socotay dhageysiga dacwada u dhaxaysa labada hogaamiye, Ruto iyo Raila, ayaa waxaa maxkamadda maanta ay go'aan cad ka soo saartay doorashadii bisha 9 bishii la soo dhaafay ka dhacday dalka Kenya. Maxkamadda ayaa waxaa si cad u sheegtay in doorashada ay ahayd mid xaq ah, isla markaasna Ruto uu helay codadka ugu badnaa oo gaaraya 50+1, taasi oo macnaheedu tahay inuu dalka hogaamin doono 5 sano ee soo socota. Kadib go'aanka maxkamadda, Raila ayaa waxa uu jeediyay hadal yar kaas oo aan sameyneynin macno badan. Raila ayaa waxa uu sheegay inuu xishmeynayo go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee Kenya, hase ahaatee natiijada doorashada uusan aqoonsaneyn. Raila ayaa waxaa la filayaa tani in ay ahayd isku daygiisii ugu dambeeyay oo uu ku doonayay inuu dalka Kenya ku hogaamiyo. Raila oo hadda da'diisu ay tahay 83 jir ayaa waxaa la rajaynayaa inuu siyaasadda ka fadhiisto isla markaasna nasasho u aado. Ma jiro wax kale oo u furan Raila maadaama 5tii doorasho ee la soo dhaafay dhammaan uu u tartamayo kursiga madaxtinimada, isla markaasna uu ku fashilmay dhammaan tartamadii uu galay. Markastana uu aadayay maxkamad, isla markaasna maxkamadda wax weyn ka soo saaray.